qaybtan waxaan ku baran doonaa la yiraahdo Boolean logic ayaan baran doonaa. Boolean logic qaabka loo isticmaalaa. Ugu horreyn waxaad soo kicinaysaa VS Code-kaaga ama Visual Studio Code-kaaga ayaa soo kicinaysaa ama Atom-kaaga ama marka hadba waxa markaas adiga isticmaalaysid editor-ka isticmaalaysid. waxaan leenahay Control N si markaas u sameeyno file cusub. waxaan iska save gareynaa waxaan leenahay Control S ayaa leenahay ama waxaad tagaysaa file kadibna waxaa leedahay save ayaa leedahay. waxaan ku save gareynaa desktop-ka waxaan u bixinaynaa magac. Okay, magaca aan siinayna waxaan leenahay markaasi boolean.py. hore waxaan u soo sheegnay file walba oo Python ah waxa u dambeeyo .py ayaa u dambeeyo extension-kaas kadib waxaan leenahay save ayaa leedahay. Okay, inta markaa taaganayn sida caadada waxaan qoranayaa title-keeni oo markaasi oo aan baran lahayn oo ah Boolean logic ayaan arki doonaa. Boolean logic muxuu yahay? Boolean logic aad u sahlan tahay kaliya waxay mar walba jawaabta ay soo celiso waxay tahay waa true ama false ay noqonaysaa. labadaas midkood ay noqonaysaa. 5 ma ka weyn tahay 6 haddii sax tahay true noo soo bandhig, haddii khalad tahay false noo soo bandhig. kaliya waxay soo bandhigtaa labadaas true iyo false ay noo soo bandhigtaa. Okay, waxaan arkaynaa markaasi comparison operationska anaga operation isbarbardhigi doona markaasi calaamadahan. calaamadaha waxaa ka mid ah markaasi aan isticmaalno wax la yiraahdo taas waxaa loo yaqaanaa waa xisaabta marka caadiga la taagan yahay equal waa hal xabo, laakiin marka programka la taagan equal waxay u taagan tahay laba ayay u taagan tahay. kana marka waxaa loo yaqaanaa equal ama equal to. sidoo kale waxaa jirto not equal to oo aydan calaamadaasi exclamatory laga hormarinayo. taana markaasi waxaa loo yaqaanaa idana not equal to ayaa loo yaqaanaa. sidoo kale waxaa jirto wax la yiraahdo less than. waxaa kaloo jirto greater than. waxaa kaloo jirto less than or equal. less than or equal to. waxaa kaloo jirto greater than or equal to. Okay, intan ayaan baranaynaa markaa. waxaan soo sheegnay Boolean marka adeegsanayno wax walba anaga aan sameyno wuxuu soo bandhigaya wax la yiraahdo inay noqoto true ama false midkood ay noqonaysaa. Okay, tusaalaha ugu hore waxaa leenahay waxaa noo soo dhaacdaa print. waxaa leenahay 5 waxay la mid tahay waxay la mid tahay oo laba mar ah loo yaqaano 5. haddii aan random waxay soo bixi doono true and false adoo si fiican u fiirina 5 ma la mid tahay 5. haddii true tahay waxaa noo soo baxay true. soo aragtan waxaa noo soo baxay true ayaa noo soo baxay. shaashada aad ka tirtirno clear hadda run dhahno waxaa noo soo baxay true. haddii 5 ma la mid tahay 9 aan dhihi lahayn maxaa dhici lahay? waxaa noo soo baxay false. soo aragtaba jawaab kaleeta meesha nooma taalo. jawaabta aan filayn waxay noqonaysaa markaas inay true noqoto ama inay noqoto false. labadaas midkood ayaa sugaynaa. waa true inaad dhahdo ama false waa inaad dhahnaa midkood. Okay, taa waa equal waan fahnay. sidoo kale not equal to kaliya waxaan bedelinaa calaamadaas waxaa leenahay not equal to. hadda maxaa noo soo baxay true ama false. shaashada aan iska tirno. haddii aad qiyaasto 5 waxaa dhahay anaga waxaa dhahan 5 lama mid ahan ama isku mid ma ahan 9 lama mid aha. sax miya mise waa qalad? waa sax sababtoo 5 iyo 9 isku mid ma ahan. saaragta waxaa noo soo baxay true ayaa noo soo baxay isma lahan labadaas. laakiin haddaan dhihi lahaa ka waran 5 lama mid aha 5 taas waa qalad sababtoo 5 waxay la mid tahay 5 ayaa la mid tahay 5 lama mid ahan 5 haddaan dhahno waxaa noo soo baxay markaasi false ayaa noo soo baxay. saaragtaba tan waxaa loo isticmaali karaa not equal to. Okay, less than see loo adeegsan. less than kaliya waxaa bedelaysaa calaamadan dhexe 5 ma ka yartaa 5. su-aasha taagan waxay tahay 5 ma ka yartaa 5. haddii ay 5 ka yartahay true noo soo bandhig, haddii kaleetana false noo soo bandhig. run aan dhahana waxaa noo soo baxay false sababtoo 5 kama yara 5 waxay la egtahay 5. Okay, haddii aan dhaho ka waran 7 marka waxaa leenahay 5 markaasi ma ka yartahay 7. maxaa noo soo baxay? waxaa noo soo baxay true sababtoo ah 7 iyo 5 marka la isbarbardhigo waxaa weyn 7 ayaa weyn. Okay, sidoo kaleeta haddii aan dhaho ka waran hal meeshaas hal ma ka yaryaa 5
waa khalad kama yaraan karo kaliya wax ka yar waa zero ayaa ka yar saddeed waxaa noo soo baxay false ayaa noo soo baxday waxaa kaloo arkaynaa shada mar hadda iska tirno waxaa arkaynaa wax la yidhaahdo greater than oo tan cagsigeeda ah shan ma ka weyn tahay hal sax way ka weyn tahay waa true okay marka waxaan leenahay hal ma ka weyn yahay hal waa khalad sababtoo ah hal wuxuu leeyahay hal ee kama weyna waxaa noo soo baxay false waxaan dhihi karnaa markaasi waxaan dhihi karnaa sideed tusaalaan sideed ma ka weyn yahay afar sax waa ka weyn tahay waxaa noo soo baxay true tana waa markaas waxaa leenahay less than or equal to sideed ma ka yar tahay afar amase way la eg tahay ma ka yar tahay mise waa la eg tahay waxaa leenahay run sababtoo ah sideed kama yar markaas afar kama yaro mana la ego waxaa noo soo baxay false ayaa noo soo baxayso balse haddii sideed ahaa leed maxaa dhici lahay waxaa noo soo baxay true aragta waxaa noo soo baxay true sababta sideed waxaa dhan way ka yartay ama waa la eg tahay sideed sababta sideed ayay la eg tahay sidaas daraadeed waxay noqotay true ayay noqotay okay greater than daa fiirino sideed waxaa dhan waxay ka weyn tahay ama ay la eg tahay sideed randhe waa true sababtoo ah sideed waxay la eg tahay markaas ay noqonaysaa sideed haddii aan dhihi lahay ka waran meeshan toddoba maxay noo soo baxay waxaa soo bixi doonta aragta ama false waxay soo bixayso waxaa dhan toddoba waxay ka weyn tahay ama ay la eg tahay sideed oo waa qalad kaa waxaa u isticmaali karnaa qaabka loo isticmaalo comparison operations qaabkaas ayaa loo adeegsadaa okay sidoo kale waxaa arki doona la yidhahdo logical operations intaa waxay comparisons sidoo kale waxaa arkaynaa la yidhahdo logical kadii aska tirno logicalka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah la yidhahdo calaamadaasi an oo u taagan waxaa kaloo ka mid ah la yidhahdo or waxaa kaloo ka mid ah not alxamdulilah okay saddexdaas calaamad ayaa arkaynaa waxaan leenahay markaan print shaashadaan iska baabi'ino waxaa dhan 5 and 5 calaamadaha mar haddaan fiirino horta an waxaa leeyahay waxaan run ayay noqonaysaa haddii mid ka mid ah markaas ay noqoto run mid ka mid ah hadduu run noqdo jawaabtaas guud waxay noqonaysaa iyadoo dhan wada run ayay noqonaysaa sidoo kaleeta or waxay run noqonaysaa oo keliya mid ka mid hadduu true noqdo hadduu mid ka mid ah oo true noqdo run ayay noqonaysaa resultii noo soo noqon doono not waxaan u isticmaalinaa markaasi haddii mid ka mid ah oo false uu noqdo haddii mid ka mid ah false uu noqdo jawaabta waxaa noo soo baxay markaasi jawaab true ayaa noo soo baxay okay 5 and 5 aan fiirino haddeertaan waxaa noo soo baxay 5 ayaa soo baxayso okay tan marka waxaa rabnaa anaga example oo cad ayaa rabnaa anaga la dabaqeyno comparisonka haddeertaan waxaa leenahay markaasi 5 waxaa leenahay markaasi 5 greater than 5 tan maxaa soo baxay okay inta hal mar iska qurxino waxaa dhahnay 5 waxay ka weyn tahay hal intaa markaa fiirsid waxaa soo baxay waa sax ayaa soo bandhigayso sax ayaa soo baxayso intaa waxaan gelinaynaa bracket ayaan gelinaynaa waxaa leenahay markaasi an sidoo kaleeto waxaa leenahay bracketka ayaa furaynaa labo waxay markaasi ka yar tahay afar jawaabta aan filayna markaa hadda maxay tahay okay clear ragade jawaabta aan filayna maxay tahay aan fiirino waxaa noo soo baxay true waxaan soo sheegnay 5 waxay ka weyn tahay hal waa sax okay labana waxay ka yar tahay markaasi afar ayay ka yar tahay ayadana sidoo kaleeta waa sax sidaas daraadeed waxaa noo soo noqday true haddii markaasi true ay wada noqdaan waxaa noo soo bixi doona wada true ayaa soo baxayso haddii kan mid ka mid ah false aan ka dhigay maxaa dhacay haddii aan labo waxay ka weyn tahay afar waa khalad kama weyn okay inta markii la taagan inta waxaa soo baxay waa true inta markii la taagan waxaa noo soo baxay true balse inta markii la taagan waa false waxay noqotay waa kanoo true ah iyo kanoo false ah maadaama an ay u dhaxayso ee labadood mid ka mid ah false ay noqotay jawaabta soo noqonaysa waxay noqonaysaa iyadana false ayay wada noqonaysaa aragtaba qaybtan hore waa sax laakiin qaybta dambe waxay ka noqotay
false ay ka noqotay. Okay, haddii aan isticmaalno or maxaa dhacaydana or waxaan soo sheegnay haddii mid ka mid true noqoto jawaabta soo noqonaysa waxay noqonaysaa true ayay noqonaysaa. Rana dhahno saarigta waxaa noo soo baxay true. haddii mid ka mid true noqoto sababta kan waa true balse kana false false lama fiirinayo true oo kaliya ayay markaas fiirinaysaa haddaa or adeegsatid. haddii labadood aan false ka dhigno maxaa dhacayo rande waxaa noo soo baxay false sababta kan waa false kan waa false waxaa noo soo baxay false ayaa soo baxaysa balse mid ka mid hadduu true noqdo waxaa markaas soo bixi doona true. Okay, ma qorin aan fiirina isdina dhan. Okay, mid ka mid haddii aan true ka dhigno waxaa noo soo baxay true sababta kana true ah balse kana false waxaa noo soo noqday markaasi false ayaa soo baxday soo baxday true ayaa soo baxday. Okay, ugu dambeyn waxaan arki doonaa qaabka loo isticmaalayo not. Okay, not si markaas aan u isticmaalno waxaan leenahay okay, not waxaa leenahay hal xab oo keliya ayaan ka dhigi karnaa. inta waxaa ku qorayna oo keliya not marka waa 5 ma ka yar tahay horta hal midda koowaad 5 ma ka yar tahay hal kama yaro waa khalad. Okay, waa khalad waa false balse not ayaa dhahnay aniga markaasi kadib ay isbedelaysaa waxay noqonaysaa true ayay noqonaysaa sababtoo ah 5 markaas kama yar hal. laakiin haddaan dhihi lahay kabaran 5 markaasi waxay ka weyn tahay hal maya 5 waxay ka weyn tahay hal aan dhahnay maxaa noo soo baxay markaas waxaa soo baxay false ayaa soo baxaysa oo waxaa meesha bedelay jawaab allah jawaabtii meeshaas ka soo baxdo waxaa cagsi ku noqonaya notkaas ayaa bedelayso. haddii marka hore ay ahayd hadda markaa fiirsa haddii khalad ahayd waxaa bedelayo notkaas ayaa bedelayo cagsi ka dhigayo qaabkaas ayuu noqonayaa true ay noqonaysaa. haddii markaasi marka hore false okay haddii markaan hadda aan ka dhigno 5 waxay ka weyn tahay dhan hal waa sax true way not ayaa dhahnay markaasi waxay noqonaysaa false ayay noqonaysaa ayada cagsi ka dhigayso qaabkaas ayuu bedelaysaa. Okay, qaybtaana markaasi boolean inta ay ku joojinaynaa fadlan subscribe like share saar haddii video markaa uu ku caawiyay asxaabtaan la share garay dhanka commenting ku qora wixii markaasi tala ah ku qor aad u mahadsantiin.